dadka ku dhaqan magaalada Cambridge ee waqooyiga caasimadda Ingiriiska ayaa waxa ay ku nool yihiin jawi argagax badan kadib markii la ogeysiyay inay soo baxsatay abeeso weyn oo nooca dadcunka ah oo dhererkeedu gaarayo 2.7 mitir inkasta oo jiir bakaylaha eeda iyo bisaduhu ay yihiin ugaarta ugu horeysa ee abeesooyinka tixgeliyaan ayaa haddana la tilmaamaya in abeesadan aan waxba la ahayn inay afka u kala furto qof aadanaha oo ay liqdo abeesadan ayaa la arkay iyadoo socota meel u dhow wadada Loville ee gudaha Cambridge saacadihii hore ee subaxnimadii Axadda laakiin booliska uma aanay suurtagelin inay qabtaan qabiir dhanka xamaaratada ku taqusay oo kamid ah dadka degan Cambridge Stephen Allen ayaa tilmaamay inay sahlan tahay in abeesada la qabto jiilaalka marka loo barbardhigo xagaaga maadaama abeesooyinku aad u soo baxaan oo ay raadsadaan goobo ay kulaashadaan sida motorada gawaarida oo kale abeesadan oo kale ayaa haweeney ku liqday gudaha Indonesia sanadkii hore laakiin Steve Allen dadku waa u niyad qaboojinaya waxa uu sheegay in abeesadan Cambridge ka baxsatay inaan laga cabsi qabin in dhibaatada mid la mid ah ay geysato abeesooyinka nooca shabakada la yiraahdo waa kuwa ugu dheer adduunka halka rasmi ahaan laga helo waa bariga Aasiya abeesadan ayaa kori karta ilaa ay ka gaarto 9 mitir halka aanay suntaba lahayn Hanad Ali Guleed